بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان كريم marka hore waxaan rabaa inaan ka tacsiyeeyo dhimashadii iyo dhaawacii soo gaaray shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan magaalada Muqdisho ee ka dhashay dagaaladii intii dhimatana Allah u naxariisto inta dhaawacana Allah caafiyo antida burburtana insha Allah badal khayr qaba ilaahayna nabad iyo dawladnimo cadaalad iyo horumar ku dhisan hana siiyo runtii wax aad iyo aad looga xumaado xilligan ayada waliba bil Ramadaan lagu jiro in dagaal dhaco dagaalkaas oo laga baaqsan karo san aaminsanahay asbaabtiisuna waxay ka timid 12 Abriil muddo kordhintii dhacday oo baarlamaanka uu sameeyay ka timiday dalkan waxaan wada ognahay waxa ugu weyn oo la xaqiijiyay waxay ahaayeen 4 sano doorasho la isla ogol yahay inay dhacdo marka waa ogtihiin mucaaradku inay mar walba ku celcelinayaan iyo dad badan oo Soomaaliyeed iyo mataqaana dawladaha Soomaaliya taageera inay laga maarmaan tahay in doorashada laga heshiiyo marka waxaan u aragnaa nasiib darro in lagu guuleysan waayo haddana ay xigto in dagaal dhaco oo dagaal sokeeyo qarka loo fulo runtii aad iyo aad aan uga xunnahay shacabka Soomaaliyeed maanta waxay sugayeen iyo waxay filayeen ma aha qodobkaas waxaan rabaa halkaas in aan ugu gudbo qodobka labaad waxa waaye xalku mar walba waa inuu siyaasi ahaado meeshan xal ciidan ma imaan karo waxa la isku haayana waa siyaasadina waxay u baahan tahay iyadoo sharciga loo fiirinayo in loo helo hab nabadeed oo looga heshiiyo waxaanu ka dhashayna waa doorashooyinka marka waa in loo helaa sida ugu wanaagsan oo looga heshii karo doorashooyinka dalkuna doorasho oo gali karo waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahad celiyo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha dowlad goboleedyada runtii marxalad adag mowqif wanaagsan oo sharaf la qaatay waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo mowqifkaas waxaan aaminsanahay meesha hadda wax joogaan iyo inaysan meeshan aysan dhaafin inuu sabab weyn ku lahay marka waxaan rabnaa aan ku bogoodinaynaa ama ku dhiirigelinaynaa in arrintaas la sii dardargeliyo sida ugu dhaqsiyaha badanna magaalada dhibaatada ka jirta sida looga qaadi lahay doorashadana loo aadi lahay ee laga wada shaqeeyo maskaxda inaan ku hayno mar walba inaysan suurtagal ahayn in xaaladdu sidaan sii ahaato waa xaalad khatara oo runtii aan la fiirsan karin loona baahan yahay in si wada jira looga wada shaqeeyo baarlamaanka waxaan rabaa inaan ugu baaqo muddo kordhinta ay sameeyaan waxay kaliftay dad badan inay dhintaan dad badan ay dhaawacmaan dad badan ay qaxaan hanti ay burburto marka waxaan rajaynaynaa inay fahmeen wixii laga digaa inay sax ahaayeen insha Allah waa la soo doortay haddana fursad ay leeyihiin laakiin haddii dawladnimada meesha ka baxdo fursad ma laha wixii ammaanadii loo dhiibtana waa dhumiyeen marka waxaan leenahay mas'uuliyadiina qaata dalkaanu waa inuu doorasho aado doorashadana waa in laga heshiiyaa doorasho lagu kalsoon yahay lagu qanci karo waa inay ahaataa ugu dambeyn waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo maadaama ay Ramadaan tahay beesha caalamka oo runtii si wanaagsan u garab istaagtay go'aanada wanaagsan marxalada kala duwan soo baxayeen gaar ahaan kuwa ugu dambeeyay waa uga mahad celinaynaa sida shacabka Soomaaliyeed u garab istaageen siday mar walba diyaar u ahaayeen wixii kalaankooda hiil iyo hoo aadan uga mahad celinaynaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa in nabadda oo noo adkeeyo dawladnimada noo adkeeyo Soomaaliya maanta dagaal uma baahnayn waxay u baahan tahay dawladnimaduna wax la wada leeyahay in laga wada shaqeeyo loo baahan yahay la ogolaado in la wada leeyahay aad iyo aad u mahadsantiin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh